munaasabada lagu soo gabagabeynaya xuska maalinta naafada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sida warkan ku haya wariyayna Sugaal Macalin Maxamuud. kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda awoodsiinta naafada Soomaaliyeed isla markaana lagu soo gunaanadayay 3 Diseembar ee la soo dhaafay oo dunida oo dhan laga xusay maalinta naafada adduunka ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, siyaasiyiin, ururada bulshada rayidka, qurba-joog iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Mas'uuliyiintii kulanka hadallada ka jeediyay ayaa dhammaantood si isku mid ah uga hadlay dhibaatooyinka gaarka ah ee ay qabaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayadoo hadiyado goobta lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah dadkaasi isugu jiray kuwa araggala iyo kuwo kale oo ku curyaamoobay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay muddadii uu burburka ku jiray. Maxamed Cali oo ku hadlayay afka dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ugu horreyntii faahfaahiyay ujeedada kulanka. inaan 3 Diseembar aan soo afjarno annagu ku faa'iideysanayna imaatiyihiina iyo kasoo qaybgalkiina iyo sida looga qayb qaadateen aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. maanta oo kaleeto waa maalin dadka bulshada ee naafada ah aad ugu weyn qalbigooda iyo moralkooda sababihii loo sameeyayna way ka mid tahay in dadka moralkooda lagu dhiso. halkan waxaa wada jooga maanta haddaan martidiin idiin sheego dadka naafada kala duwan haddii ahaan lahay dadka araggala iyo dadka dhagaha la. wasiirka howlaha guud Saalax Sheekh Cusmaan oo asna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay mudan yihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah in la taageero waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay caawiyaan dadkan. waxaan xaq u leeyahay inay shaqo ka helaan wasaarad kasta oo wasaaradda ka mid ah xaq u leeyahay way dalbi karaan shaqada qof u diidi karana ma waxaan diidayaa shuruudaad kale xeray wax jirma haddii qofkii yimaado oo yiraahdo baahida gaarka aniga waxaan soo bartay joogin taranay waa la qaadanaya ما جرى واحد كعلنا إن شقة قلبنا تاسنا وأنا قانت دولتنا وحال والله صوت شن لواتن سنة دقال سكاي داع ما بربر الكلية اسمياش دولته وحاب بربر دتك مسكحدو سيلون السودات كمسكحدو واحد ما نسموده. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Xaawo Maxamed Cali Samatar oo gabagabadii kulanka soo xirtay ayaa goobta ka ballan qaaday inay ku dadaali doonto sidii loo meel marin lahaa sharciga dadka naafada ah oo uu qorshihiisu socdo. annaga haddaan nahay mas'uuliyiintii wadanka waa qasab waa ma aha wax baryo iyo dib u dhac inaan dhagaha ka qabsano ma aha waa qasab inaan meel marina sharcigii naafada. marwaan ka sheegay halkan ummad yahow aan barano cilmiga sahlan oo ah xuquuqul insaani ma aha cilmi weyn ma aha cilmi nin cadaan ah aan weydiinayno waa diinteena. kulankani intii uu socday ayaa hadiyad uu ku muteystay u qadimeynta dadka danta yar ee qaba baahiyaha gaarka la guddoonsiiyay wariye Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar oo ka mid ah wariyaasha magaalada Muqdisho ka howlgala. Sugaal Macalin Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.